شرفت كل كان جو جاليدا قفل بحق سلامة مصر أي مقام كفريو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام كدي وحنو ما عندنا جاليدا صومالية في سود أفريقيا قوان قاودة يسميين يسودوين تينو سميين حفلة عن غرفة البلد يعاون يسودوين هذه نقول هذا أرنتاس الوحيد موجودة سنة نتوسيسا سيد ويهين dad wanaagsan isku xiran isku kalsoon macno weynna ay u leedahay Soomaalinimada iyo dowladnimada dareen xooggan ay leeyihiin sida loo soo dhaweysay markaan imaanay ilaa hadda halkan waxaan u nimid inaan ka qayb galno shirweynaha Afrika ID-ga ama waxa loo yaqaan legal identity dowladda Soomaaliya shirkan waxay u qeybgalayaan وزارة arrimaha gudaha federaalka iyo dib-u-heshiisiinta wasaaradda ahaan iyo hay'adaha raacsan ay ka mid tahay hay'adda diiwaangelinta dadweynaha ama Somali National Registration Authority iyo dad dhigista ujeedka shirkan aan u imaanay wuxuu ahaa in aan aqoon isweydaarsiga dowladaha Afrika ay aadan dhinacyada registrationka ama national ID-ga ama dadbigista dowladiisa kala duwan hadday ahaan lahayd shahaadooyinka dhalashada dhimashada guurka furiinka iyo xaaladaha madaniga guud ahaan in aan wax ka baranno aan aqoonsi aan la yeelanay iyo tiknolojiyada cusub ee kusoo korortay howlaha la xiriiro legal identity-ga dowladaha Afrika kulankaas oo socon doona haddii ilaahay yiraahdo 3 maalin waxaan rajaynaynaa inuu noqdo kulan meel dhal ah haddii aan warbixin kooban ka siiyo xaaladda dalka idinkuma seegana dhinaca wararka waxaa tihiin dad aad uga warqaba oo la socda mar walba laakiin waxaan rabaa inaan kusoo koobo waxay maraysaa horumarka laga sameeyey dhinaca dowladnimada maanta inaan ka hadlayno sidii loo diiwaangelin lahay dadkeena oo dhan ay u heli lahaayeen aqoonsi qof walba Soomaaliya u heli lahaa oo u heli lahaa qof walba oo Soomaaliya carruurtiisa markay dhashaan sida loo siin lahaa shahaadada dhalashada sidoo kale tirakoob lagu sameeyo xaaladaha madaniga oo dhan arrintaas waxay ku tusaysaa in dalkeenu u diyaar garoobay horumar walba oo dhinaca arrimaha bulshada dhaqaalaha laga sameeyo siyaasadda sidoo kale waxaa awood loo yeelan doonaa inay dadka codeeyaan ee doorashooyinka qof iyo codkaasi toos ah inuu qayb qaato waa sida kaliya oo dowladda Soomaaliya ay u aragta hadda in lagu sixi karo wax walba oo qalad dalka ka jiro dadka in ay awood u yeeshaan inay doortaan hogaankooda waana go'aanka dowladda hadda jirta ay qaadatay in lagu kala wareegi doono xilka dowladda ay yiraahdo doorasho qof iyo cod ah waxaan kula dardaarmaa jaaliyadda Soomaaliyeed ee joogta dalka South Africa in ay isku duubnidooda xoojiyaan kuna fikiraan sida ay dalkoodii uga qayb qaadan lahaayeen dhismaha iyo dowladnimada iyo maxaa la yiraahdaa ii sheeg dadaalada socda ay ka mid tahay xoreynta dalka laga xoreynayo khawaarijta iyo sidoo kale dib u soo kabashada marka laga xoreeyo ka bacdi ay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka hantida Ilaahay siiyana ay ka mid noqdaan dadka ku tabarucaya ee hantidaas gelinaya dowladda yiraahdo waxaan kaloo dardaarmaynaa in aad meesha aad joogtaan dalkan aad joogtaan micno ku yeelataan shuruucdiisa ilaalisaan sidoo kale waxaan ballan qaadaynaa annagana in aan halkan idinkugu keeno adeegyadii arrimaha bulshada oo ka Soomaali ahaan aad ugu baahnaydeen ayna ugu weyn tahay aqoonsiga iyo diiwaangelinta arrintaasna waan ka wada hadalnay safiirka hadduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool dalka South Africa ay helaan xuquuqdooda diiwaangelineed iyo xuquuqda carruurtooda markay halkan ku dhashaan ay u helaan dukumentiyadii caddaynaya dhalashada Soomaalinimada سفيرك جمهورية فدرالك Soomaaliya u fadhiya dalka South Africa si uu yiraahdo